xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka 11aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta codka kalsoonida siiyay ra'iisul wasaaraha cusub ee xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre oo dhawaan u magacaabay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud. xildhibaanada golaha shacabka ayaa qaab gacantaaga codka kalsoonida u siiyay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre si uu soo dhiso xukuumadda cusub ee dalka, taasi oo ay hor yaalaan shaqooyin dhowra oo laga doonayo inay qabtaan. ma jirin xildhibaan diida ama ka aamusay ansixinta ra'iisul wasaaraha xukuumadda oo 15kii bishan uu magacaabay madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud. gudoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Madoobe oo shir gudoominaya fadhigii maanta ayaa sheegay in 220 mudane oo soo xaadiray fadhigii maanta ay siiyeen codka kalsoonida isla markaana aysan jirin mudane diiday ama ka aamusay codka kalsoonida ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre. ra'iisul wasaaraha magacaabisiis waa ansax ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo qabac islaamaan. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo intaasi kadib lagu soo dhaweeyay mikrofoonka ayaa u mahadceliyay xildhibaanada golaha shacabka ee siiyay codka kalsoonida, wuxuuna sheegay inuu soo dhisi doono xukuumad khibrad leh oo lagu soo xulay aqoon, hufnaan iyo waayo-aragnimo. laakiin waxaan ku kalsoonahay sida aad codka ii natiijteen inaad ii garab istaagi doontaan, waxaana hubaa haddaad ii garab istaagtaan in caqabad kastoo jirta aan si wada jira uga gudbi doono haddii ilaahay idhaahdo. kaftan yar haddaan ku daranaa waxaan codsanayaa markaan xukuumadda soo dhisana sidan oo kale. ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa laga dhur sugayaa in muddo 30 cisho uu ku soo dhiso xukuumaddiisa cusub si ay u gudagalaan howlaha xilligan hor yaala dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Samir Cabdirasaaq Umar, wararka muuqaalbaahiya SBTV, magaalada caasimadda Muqdisho.